gabanaha ismaamulka Mandera ayaa sheegay in ciidanka Jubbaland ay ku sugan yihiin qaybo kamid ah ismaamulka uu hogaamiyo ee Mandera gaar ahaan duleedka Mandera. waa markii ugu horeysay oo sarkaalkan ugu sareeyo ismaamulkaas oo xad la leh Soomaaliya oo si rasmi ah u sheego ama u shaaciba in ciidanka Jubbaland tani intii ay bilaabmeen dagaaladii beled xaawo ay ku sugan yihiin qaybo kamid ah Mandera, arrinkaas oo uu sheegay in walwal iyo cabsi ay ku abuurtay dadka deegaanka. gabanaha ayaa fariin la wadaagay ciidamada KDF-ta ee ku sugan Mandera. ciidan hadda la keenay oo kaambi loo hagaajiyay oo tababar bilaabeen KDF-na magaaladan iska joogaan waa macquul maaha, waa arrintan ay isla jiraan. We want to call upon arrintan Soomaali kasoo bilaab 1992gii ilaa waqtigan mar kasta oo dhaco col ama Carabiga dhinacaas ku dhaco Mandera zaa'idan sameeyay. arrimaha badan aan soo marnay, waxaan soo marnay niman la yaraado al-Ittixaad, waxaan soo marnay Islamic Court Union, waxaan soo marnay colaha qabiilooda, laakiin tan beriyaan socod waxa waaye culays badan ay keentay. kuwii hore waxa waaye wadankii Kenya dhex ma galin arrintaas, hadduu dhib dhaco waxaa uun dhinacaas un Soomaaliya. hadda Kenya ama ciidankan Kenya la yiraahdo KDF waxay noqdeen dad u shaqeeyo ama isku diro dadkii Soomaaliya. ciidan hadda la keenay oo kaambi loo hagaajiyay oo tababar bilaabeen KDF-na magaaladan iska joogaan waa macquul maaha, waa arrintan ay isla jiraan. gabanaha waxa uu sheegay in ay jirto qorshe ay ku wada shaqeeyaan ciidamada KDF-ta iyo ciidanka Jubbaland ee ku sugan ama saldhigyada ka samaystay Mandera. waxaana uu sheegay in haddii dawladda ay qaadi weyso tallaabo dib loogu celinayo ciidankaasi in iyagu ay iska dulqaadi doonaan. We want to call upon His Excellency the President of the Republic of Kenya, who is also the Commander-in-Chief of all the armed forces. Mandera cannot be turned into a battleground for Somalia. We have no interest in Somalia. The only interest we have in Somalia is peace. If they cannot peace and fight, then we have no business to involve in their internal affairs. They have opened a camp in BP1. BP1 primary school is now closed. And there are people who want to do exam in the next 1 month. How do you close a public school and turn it into a military training camp? It is impossible. So tunawaeleza immediate relocation of Jubbaland force out of Mandera. Immediate. I want to tell them, if you don't do it, we will do it ourselves. Kama unataka unasaidia peleka Somali, saidieni huko. The Somalis are flat. You cannot. Huwezi funga mashamba ya wananchi, huwezi funga shule, huwezi funga water supply, huwezi uwa watu wetu ovyo in the name of supporting a faction in Somalia. What interest do you have in Somalia? We don't have any interest. So tunawaeleza CS Defense sujia kwa wapi? I've never heard of that lady since she was appointed. Sujia anafanya kazi gani? KDF must pull out of supporting the Jubbaland force. They must relocate Jubbaland from Mandera County.